صباح wanaagsan dhammaan asxaabey saaka waa subax waxay noo tahay 13 Maarch 2020 waqtigaas bishii saddexaad aan ku jirnaa baa baraf saas u da'aya saacadda hadda waxay tahay waa saaca 6 aroornimo oo 12 dhiman 2 daqiiqo dhiman ama Soomaalida maxay u yaqaaneen 12 saac ama 6 miyaa wax saas camal almost waa 6 in the morning and waxaas u jeedin saaka waxa noo da'ay baraf dabayl wata meel kasta saas u buuxiyay barafkaas nolol ay noo noqotay inaan ku dhex noolaan waqtigaas ku soo dhex bixaysa hadda meeshan gaari baa xaqay barafka ka xaqay waa meeshii dadku soconay waqtigaas waxa u soo kacay shaqo soo aadaysa leeno you have ina shaqaysid hadii kale ma noolaanaysid waxa u baahan tahay waxa cuntidii waxa cabtidii meelaha seexatid ilmaa kugu xariira masaarif bay ka rabaan ilmaha aabbo ma lahan allahu akbar marka wakaas xaalku subax wanaagsan waa idin salaamaysaa u dhantiin qaraabo iyo asxaab iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan hadda habeenaa loo malaynaa waana subax saas waa winter time-ka qaboobaha habeenkii badan 3 saac subaxnimo ay qorraxda marmar soo baxaysaa marka kulligeen saasaan ku wadi jirnaa nolosha qurbaha waa noocaas dadka Afrika joogana hadda waxay rabaan inay meeshaan imaadaan oo soo ordayaan waxay u malayaan inuu malab yaalo bal arag meeshaan gudahaan hadda soo galaan qabow iyo baraf baa saaka noo da'ay waxaan wataa kabahaas khafiifka ah saaka baraf baa iga buuxad barafaan dareemayaa laakiin wax badan ma ku socdaane waa inta yar labada bildhin aan iskaga soo dhex lugeynay baa barafka saas lugaygu u buuxiyay xasbi allah wa nicmal wakiil allahu akbar dunyadu waa kaas barafkaasaas meel kasta shadi waxaas waa baraf